asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa sheeko xiiso badan oo dhex martay sargaal ka tirsanaa sirdoonkii soomaaliya iyo sidoo kale sirdoonka muusaad ee maamulka israa'iil. sheekadan waxaad ka ogaan kartaa tayadii iyo awooddii ay lahaayeen hay-adihii sirdoonka ee soomaaliya. maadaama dadka igu xidhan ee aad ay u daneeyaan arrimaha sirdoonka, sidaas daraaddeed ayaan baaritaanno iyo warbixinno badan aan iskugu shuqliyaa inaad ka heshaan ama aad ka ogaataan arrimaha sirdoonka. haddii aan kaftamana dad badan ayaa arrimaha sirdoonka wax iga weydiiya, kuwaas oo qaarkood xitaa aniga i tuhma. laakiin kuliyaddeydii jaamacadda ee aan ku dhammeeyey bachelarka ayaa waxay ahayd kuliyadda humanitiga, gaar ahaana social scienceska. taas ayaa waxay igu dhalinaysaa in dadkayga soomaaliyeed ay ogaadaan wax badan oo caalamka ah. sheekadan waxaa qoray xiirane oo ahaa sargaal hore oo ka tirsanaa sirdoonka soomaaliya sannadihii 1976 ilaa 91, waxaana ay ahayd mid xiiso badan. waxaana ka sheekaynaya master xiirane. hay-adda USAID ee dalka maraykanka oo sannadkii 1976 lacag dhan $29 milyan oo dollar ku bixisay mashruuc waraabineed oo loo samaynayay dalka Itoobiya, iyadoo arrintaasi looga gol lahaa in lagu curyaamiyo laguna oomiyo soomaalida beeralayda ah. bishii janaayo ee sannadkii 1976 ayaa madaxweyne maxamed siyaad barre allaha u naxariistay waxa uu shiriyey xubnihii golaha sare ee kacaanka, waxaana laga xaajoonayay waraaqad ama xaashi sir ahayd oo laga soo dusiyey xafiiska laanta beeraha adduunka ee FAO ee fadhigeedu uu yahay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. warqadda waxa ay sheegtay in dowladda Maraykanka ay doonayso inay biyaha ay ka jirta beeralayda Soomaaliyeed ee ka cabab webiga Shabeelle, iyada oo la adeegsanayo mashruuc waraabineed oo loo samaynayo dalka Itoobiya. hay-adda horumarinta caalamiga ah ee loo yaqaana USAID ee dalka Maraykanka ayaa ku yaboohday lacag gaaraysa $29 milyan oo dollar, waxaana Washington ay ugu talagashay in lagu oomiyo soomaalida beeralayda ah, iyadoo mashruucaasi ay fulin lahayd shirkad Israa'iil laga leeyahay. muddo 9 bilood ah ayaana la karinayay qorshaha laga yeelayo mashruucaasi ay doonayso Washington inay ku gumaado wax soo saarka soomaalida iyadoo adeegsanaysa xeeldheerayaal Yahuud ah. dhammaadkii bishii 9aad ee sannadkii 1976 ayaa la iiga yeeray xafiiskii madaxweyne Siyaad Barre. waxay ahayd shaqo dibadeed tii iigu adkeed ee la ii diro, iyadoo oo ay jirtay inuu ahaa sannadkii iigu horreeyey ee aan soo mooganaa dugsigii ku yaallay magaalada Moscow ee barashada xeeladaha ilaalinta qarankii dalkii Soofiyeed ee Ruushka, waana sannadkii koowaad ee aan si rasmi ah uga howl bilaabo sirdoonkii Soomaaliya ee NSS-ta loo yaqiinay. qorshe dhammaystiran ayaa gacanta la ii geliyey, waxaana u dhoofay magaalada Lagos ee dalka Nigeria oo ka mid ahayd marinadii iyo jidadkii shaarbadalashada ee NSS-t Soomaaliya ama sirdoonkii Soomaaliya. kadibna magaalada Budapest ee dalka Hungary, halkaas ayaan ka aaday ama aan ka tegay ama aan ka sii gaaray magaalada Tel Aviv oo caasimad u ahayd Israa'iil. markii iigu horreysay waxaan fiidkii diyaaraddii aan la socday ay cagadhigatay dhabaha diyaaradaha ee Ben Gurion la yidhaahdo. waxaan habeenkii aan u hoday hotel aanan haatan magaciisa aan xasuusan. aroortii ayaan doontay guri aan ka shaqo tago, waxaana guri ka kooban jiif, jiko iyo fadhi isku qoofilan aan ka helay oo aan ka kireysay dhismaha 37aad ee jidka ama waddada la yidhaahdo Yuushac binu Nuun ee magaalada Tel Aviv. 3 cisho ayaanan intaanan fiidkii baxo aan soo iibsanaya dhowr dhallo oo qamri ah, kadibna intaan suuliga ama musqusha ku qubo ama ku daadiyo ayaan dabadeed miiska saartaa wax kabasho dhan oo haraa ah, aniga oo iska dhigaya nin qamriga caba. waxaan sidaasi u yeelayay haddiiba ay dhacday inay soo galaan qolkayga sirdoonka Israa'iil inay ii arkaan nin iska tumanaya oo qamriyo cab ah. waxaan maareeyay in aan la xiriiro shirkaddii qaadatay qandaraaskii oo la yidhaahda Netavim, anigoo iska dhigaya nin ganacsado taajir ah oo ka yimid dalka Argentiin. waxaan ula tegay tusmada dhulbeereed baaxad leh oo ku yaalla gobolka lagu magacaabo La Pampas oo 790 kilomitir u jira xarunta ama caasimadda dalkaasi ee Buenos Aires. dhulkaas oo aan sheegay inaan leeyahay ahayna taajir doonaya in loo sameeyo waraab casri ah. dabadeedna iyaga oo isoo dhoweynaya ayaa la iska kaayo baray ninkii injineerka biyogelinta ka samayn doona dalka Itoobiya. waxaana maalin walba aan telefoonka aan kula xidhiiraa sargaal ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya ee NSS-ta oo taliska sare ee sirdoonka Soomaaliyeed u fariisanaya magaalada San Luis oo aanan ka fogeyn beerteeda gobolka ay ku taalla ee Argentiin. waxaana ka dhigaya ninkaas sida inuu yahay sargaal beerteeda qaabilsan. markii aan 12 maalmood wada hadal kula jiray shirkadda ayaan waxaan dhaliyay 3 gool, iyaga oo xogo sirdoon oo muhiim ah ay dalkaygii hooyo ee Soomaaliya aan u soo helay,
aniga oo maagan ama doonaya in aan laba kale aan ku daro ayuu ii sheegay sargaalkii soomaaliyeed ee san louis joogay in beertii uu cayayaan galay ayna halis ku jirto haddii aan si dhaqso ah loo daaweyn inaan la iga maarmayninna waa uu ii sheegay dabcan hadalkaasi wuxuu ahaa inay dhici karta in la iga shakiyey markaana inay tahay in aan durba dhoofo sidii ayaana yeelay jidkii dheeraah ee hoyashada ayaan u soo biyo dhaansaday anigoo aan ka xumayn inay laba xog ah ii dhinnayd safarkii iigu adkaa shaqada iiguna halista badnayd iyo waxay ahayd socdaalkii iigu horreeyey wuxuuse ahaa marinka 9 socdaal oo aan ku tegay gadaashii wuxuuna ahaa bilowgii socdaal dheer oo nafo badan galaaftay xurriyaddu waa ubax haddaan laga dhowrin cayayaanka ayaa daldalool u yeela haddaanan dhiig badan loo daadinna guriga nabad lagama dareemo hadduusan jeceyl dhaba jirin waan ka xumahay inaana sii helin xogta oo dhammaystiran taasoo ku aadanayd in warbixinta uu soo helay lagu badbaadiyey waraabkii etoobiya ay doonaysay in loo sameeyo islamarkaana lagu curyaaminayay biyaha webiga shabeelle laakiin nuxurka sheekada ayaa waxa ay tahay tabaha ay adeegsanayaan marka hay-adaha sirdoonka ay doonayaan inay xog iyo xuraan dheer ay ka helaan dal shisheeye waxaa kaloo nuxurka warbixinta ay tahay in muhiimadda la siinayo dalka loo adeegayo waxaan filayaa inaad ugu yaraan aad iftiin kooban aad ka heshay taasoo ku aadan tabaha sirdoonka ay adeegsadaan iyo sidoo kale awooddii ay lahaayeen hay-adihii sirdoonka ee soomaaliya waa hagaag dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay qaybtii aan uga hadli jirnay xogaha dahsoon oo aan toddobaadkan idinku hayno warbixinno xiise leh wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenni xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno goobaha ay turkigu u daraasadeeyeen inay ku habboon yihiin inay ku rakibaan gantaalaha S-400 ma qarsoona walaaca weyn ee dowladda gariiga ka haysta helitaanka dowladda turkiga ee ay la jaarka tahay ay helayso gantaalaha difaaca S-400 ee raashiya samayso laakiin walaacaasi haatan waxau galay marxaladihiisii u sarreeyey isagoo shakigii ay gariigu ka qabeen helitaanka turkiga ee gantaalahaasi uu haatan isu beddelay mid xaqiiqa kadib markii ay gariigu si qarsoodiya u heleen qorshaha turkigu mid ka mida baytariyada laga ridayo gantaalaha ugu rakibayo xeebihiisa koonfur galbeed oo ay ka xigaan dalalka gariiga iyo qobrus waana xilli weliba ay sidoodii u qaydhin yihiin khilaafaadkii xuduudda ee badda iyo cirka ee labadaa waddan muddada dheer dhex yaallay sidoo kalena aan weli xal loo helin murankoodii ku saabsanaa seegashada mulkiga jasiirado kala duwan khilaafkooda kale ee ugu xilligan ugu weynuu yahay ceelasha gaasta iyo dhiisalka ee bariga badda mediteraneanka gariigu waxay ka warwarsan yihiin helitaanka ankara ay hesho gantaalaha S-400 dabeetana ku rakibto xeebaheeda koonfur galbeed inay dhalin doonto isu dheelitir la'aan dhanka awoodda militariga oo ku timaada gobolka turkigana siinaysa gacan sarraynta ay ku qabsan karaan ama ku maamuli karaan dhanka hawada gaar ahaan deegaanada uu mulkigoodu muranka ka jiro ee ay labadooda waddan isku haystaan waana xilli uu khilaafkii soo jireenka ahaa ee labadaa waddan ee ku saabsanaa jasiiradda qubrus uu weli taagan yahay oo ay jasiiraddaasi u kala qaybsan tahay koonfurta qubrus oo ay dad gariigii degan yihiin ahna dhinaca jasiiradda ka mida ee ay gacanta ku hayso dowladda loo aqoonsan yahay qubrus xilli ay waqooyiga jasiiraddana degaan dadka asalkoodu ka soo jeedo turkiga oo madax bannaanidooda ku dhawaaqay laakiin aanay dalalka caalamka aqoonsan marka laga reebo dowladda turkiga iyo dhowr dal oo ka mida waddamada aasiyada dhexe ku yaalla oo ula macaamila qaab dowladeed waxaa dhacday inay had iyo goor turkiga iyo gariigu isdhaafsadaan eedaymo ay midibata kale ku eedayso inay ku soo xadgudubtay hawadeeda waana shayga haatan gariiga ku keenay inay dareen cabsile ka muujiyaan gantaalaha S-400 ee turkigu iibsanayaan iyo meelaha ay doonayaan inay ku rakibaan iyagoo gariiga u arkaa inay haatan ka bacdi rakibaadda gantaalahaasi xad u yeeli doonto duulimaadka diyaaradahooda taasina ay hoos u dhigi doonto awoodihii dagaal ee militarigooda diyaaradaha turkiguna ay ku keliyeystaan duulimaadka aaggaasi lagu maransan yahay lahaanshahooda
walaaca ugu weynaysa waxa uu Giriigga ka haystaa inay helitoonkooda gantaalaha ka bacdi Turkigu awood u yeeshaan inay gacanta ku qabtaan aagbadeedda qaniga ku ah gaasta iyo batroolka ee bariga badda Mediterranean-ka si gaar ahna ay Turkigu keligood dhinacooda kaga dhawaaqaan calaamadinta xuduudahooda badeed yareeyaanna awoodda ay Giriigga, Masar iyo jasiiradda Qubrus iyo weliba dalal kale oo Israa'iil lafteedu ka mid noqon karto u yeelan karaan inay militari ahaan kaga hor yimaadaan dowladda Turkiga maadaama ay haysanayso gantaalahaasi Ruushka ee dhanka difaaca. Toddobaadadii u dambeeyey ayay ahayd markii ay Turkigu ka bilaabeen howlaha saaminta saliidda iyo gaasta xeebo ka tirsan badda Mediterranean-ka oo ay Masar iyo Qubrus sheegtaan inay iyaga u dhaxayso laakiin Turkigu